Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Francis Media. Tani waa qisada Atwan Chan, waa ganacsade asal ahaan kasoo jeeda Kuuriyada Koonfureed balse ku meel dhaliyay dalka Mareykanka. Waa shakhsi waardiye ka ahaa goobaha la dhigto gawaarida, balse maanta mid ka mid ah bilyaneerada ugu caansan dunida. Atwan Chan wuxuu ku dhashay Kuuriyada Koonfureed taariikhdu markay ahayd bishii Maaj 20keedii 1954. yaraantiisii wuxuu ahaa mid jecel waxbarashada, wuxuuna ku guuleystay inuu ka qalin jabiyo dugsiga sare, balse riyadiisii ahayd inuu galo jaamacadda wayna u suurtogeli weysay. Dhaqaale la'aantii haystay ayaa hamigiisii waxbarashada soo duuduubatay, balse wuxuu go'aansaday inuu la yimaado dadaal iyo howlkarnimo si uu u helo dhaqaale ku filan. wuxuuna Atwan Chan bilaabay inuu ku iibiyo cabitaano iyo shaax wadooyinka ugu dhaadheer ee Kuuriyada Koonfureed ee Seoul. duruuftana kama hor istaagin inuu guursado, wuxuuna xaaskiisa ka dhigtay Chen Sun Chan, waxayna labadoodu noqdeen kuwa si wadajir ah u howlgala, isla markaana leh hadaf kaliya oo uga baahan dadaal iyo karti. waxayna si wadajir ah u ururin jireen lacagta ay soo shaqeeyaan, waxaana 1981dii u suurta gashay labadooduba inay u dhoofaan gobolka California, gaar ahaan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. markii ay Mareykanka gaareenna muddo dheer ayay ku jireen xaalad shaqo la'aan ah, waxayna intaas isticmaalayeen lacagtii ay keedsadeen markii ay joogeen Kuuriyada Koonfureed. laakiin ugu dambeyn lacagtaasi way ka dhamaatay, waxaana soo fod saaray caqabado dhowr ah sida shaqo la'aan iyo luqadda Ingiriiska oo ku adkeyd. laakiin Atwan Chan wuxuu mar kale qaatay mid la mid ah go'aankii uu qaatay markii uu ku sugnaa dalkiisa hooyo, wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo 3 shaqo oo kala duwan. wuxuu ka shaqayn jiray kaalin shidaal iyo goob lagu iibiyo kafeega, wuxuuna sidoo kale waardiye ka ahaa goob la dhigto gawaarida. laga yaabo inaad isweydiinaysaan goorta uu nasto ama uu seexdo, laakiin Atwan Chan waxa uu ahaa mid seexdo waqti aad u kooban, wuxuuna xaaladan shaqo ku jiray muddo 4 sano ah. mid ka mid ah shaqooyinkii uu ka shaqaynayay asagoo ku guda jira ayuu helay fikradda ka dhigtay maanta qofka uu yahay. Atwan Chan markii uu ka shaqaynayay waardiyahana ka ahaa goobta la dhigto gawaarida, ayuu dadka wata gawaarida qaaliga ah weydiin jiray waxa ay ka shaqeeyaan ama ganacsigooda ku saabsan yahay. qofka uu arko inuu haysto lacag badan ama uu taajir yahay, su-aasha kaliya uu weydiin jiray waxay ahayd waa maxay shaqadaadu. dadka uu weydiiyey su-aashaasina waxay u sheegeen inay yihiin ganacsado dharka iibisa. Atwan Chan ma uusan jeclaysan fikraddan ganacsi maadaama uusan khibradeedu lahayn, wuxuu daaliyey maskaxdiisa in badan ayuuna ka fikiray inuu dhankaas u jihaysto. wuxuu bilaabay inuu baaro islamarkaana aqriyo waxyaabaha ku saabsan ganacsiga dharka si uu u xaliyo khibrad la'aantii aqoon darrada ka haysata. muddo 4 sano ayuu baarayay islamarkaana aqrinayay macluumaad ku saabsan dharka, wuxuuna aqriyay buugaag badan oo ku saabsan ganacsiga dharka. islamarkaana asigii xaaskiisa waxay go'aansadeen inay furaan dukaankoodii ugu horeeyay ee dharka, kaasoo ahaa mid yar ay ka fureen waqooyiga Los Angeles, gaar ahaan xaafad ay deganaayeen dadka danyarta ah. Atwan Chan wuxuu durbaba galay caqabo uusan ka fikirin. mushkiladda uu arkayay markaasna waxay ahayd 6 dukaan oo ku yaalay agagaarkiisa, dhammaantooduna lagu iibinayay dharka. kuwa ku ag yeelayna waxay ahaayeen kuwa la daala dhacayay fashil ganacsi maadaama ay gadayeen dhar qaali ah dadka deegaankana aysan awoodin. Atwan Chan waa uu fikiray, waxa uuna go'aansaday inuu isbeddel sameeyo, lana yimaado dhar jaban ama raqiis ah si ay u iibsadaan dadka ku nool halkaasi. fikraddaas ayaa dukaankiisa ka dhigtay mid leh dhaqdhaqaaq fiican. wuxuu filayay sanadkiisa koowaad inuu helay $30,000 oo faa'iido ah, balse waxa uu helay lacag ku dhow 1 milyan ama $700,000 ah. wuxuuna ogaaday inuu ku socdo waddada saxda ah, uu ku socdo qofkii doonayo inuu gaaro guusha ganacsi. kadib wuxuu gudaha Mareykanka ka furtay 5 dukaan, wuxuuna ganacsigiisa hubiyey magaca Forever 21. 6dii bilba wuxuu furi jiray dhowr dukaan. 2010kii dukaamadiisu waxay gaareen 457 dukaan. asaga iyo xaaskiisana waxay galeen liiska dadka ugu taajirsan caalamka. ninkii waardiyaha ahaa shaaxan iibinayay waxaa maanta u shaqeeyo 40,000 oo shaqaale, waxayna 2015kii dukaamadiisu gaareen 600 oo dukaan. wuxuuna sidoo kale hal abuuray calaamado kale oo ganacsi sida Love 21 iyo Forever XXL. shirkadiisu Forever 21 way isballaarisay, waxayna soo kordhisay waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan iyo sidoo kale waxyaabaha lagu qurxiyo guryaha.
waxaa sanadkan daafaha caalamka ugu furan in ka badan 700 oo dukaan. Sida ay sheegtay Majaja Fabis, isaga iyo xaaskiisa waxay haystaan lacag gaaraysa 5.9 bilyan oo dollar. Shirkadda Forever 21 waxayba sanadkii soo xareysaa 4.4 bilyan oo dollar, waxayna dukaamadooda ka furan yihiin dalalka dhaca qaaradaha kala duwan ee caalamka. Hana hilmaamin inaad subscribe saarto si uu kuu soo gaaro muuqaalada cusub.